dimuqraadiya fadhina laakiin maxamed abiibow xildhibaan maxamed abiib yuusuf dadku waxay u haystaan inaad tahay xildhibaan rabshad badan oo daalacan dhashay oo qaylinaya oo golihii rabshay oo golihii golo dhalinyaro ka dhigay oo culays golihii ku haya oon amar qaadanaynin oon dadkii soo doortay ixtiraamaynin maxaad ku leedahay dadkaaga walaal horta waxa culayska keenaya waa aragtida anoo aragti baan leh iskama niman meeshan uma nimanin inaan maaragtay inaan iska dhex fadhiyo uma nimanin inaan difference ka sameeyaan u imid noocuu noqonaya aragti oo wax ka bedelaysa habku golaha u shaqeeyo oo wax ka bedelaysa siyaasadda guud ee dalka oo wax ka bedelaysa dhaqaalaha oo wax ka bedelaysa tamaad aragtay akhlaaqiyadka iyo wada noolaanshaha bulshada oo wax ka bedelaysa cadaaladda intaas oo aragtiyood baan rumaysana oo la yimiday waxaan maanta golaha la fadhiyana halkan kumaan dhex abuurin oo iguma dheelin markaan golaha yimiday waan ku soo ololeeyay dadku hadday daawadaan kilibadeedii markaan ololeynayo dhan wax alla waxaa soo aragtiyaan sheegay aragtiyaa ka qabo haddaba aragtidaas seen u meel maranayaa waxaan xildhibaanka kale ee iga soo horjeedaana waa ila mid aragti buu la yimid soo ma labadeeda maxaa noo dhexeeya sharcigaa noo dhexeeya procedureka yaa isku kaaya hayadeen gole 280 oo kala fikir duwan oo kala dhaqan duwan oo kala dabeecad duwan oo kala maad aragtay xaraarada sareeyo mid booli pointigiisu wana daran marayo mid uu 20 marayo mid 30 maraya joogna sidee ku wada noolaan karna ku wada socon karna procedureka sharciga ku wada noolaanayna mid wuxuu leeyahay 100% dalka waxba kama khaldana Mareykanka kabeena ka horeyna أنا وحلي هاي وارمية مريكا كم هرينة وحي نمرنا ميل إنه حاجات سنو وحنا وين نوصق بسمينه حاجات سنو سما لبضي يضع محاسك هاي هي كلارة تدون شرط هي بروسيجر خاصك هاي محمد أبيب ده ما نتو شرعي كواحد قدبو أنا أقول رأيي قدرت كمرت أكليه رأيي سده سجى حقوله إن عندك يستور رأيي سمر كودا ما يستان ناك جوابا حقوله لكن waxa keenaya kuleylka meesha ka baxaya anu qof xaamisan baan wax rumaysan wax doonaya marka uu dibsanaya qofka waxba doonin uu dibsanaya waxay dibsanaya kayga soo horjeeda laakiin raba inuu sifo sharci dareego aamusiyay dibsanaya ma jamaati marka adigu rabitaankaaga sifo sharci darrada dad martay uma marin oo aad golihii iyo hoosta iska xidhay intaad baxdo dibadda shirtiraad ku qabato miyaanay khalad ahayn wax khalad oo aad gariga golihii ka tilmaantay waa daba qodobkaana ku sheegay dhigayso horta wax uu horta xildhibaanka dastuurka u ballan qaaday xildhibaanku wuxuu arkay wuxuu maqlay wuxuu maleeyay ama wax uu si aragtidiisa ka aaminsan inuu sheego horta dastuurka u ballan qaaday lama aamusi karo mudana sessionka goluhu fadhiyo inta ka baxaba oo goluhu idin lama qabo waxaad wadeen lama qabo laakiin cod lagaaga adkaanayo ma codna waa lagaaga adkaa cod lagaaga adkaa iyadoo cod lagaaga adkaadan xaq u leeyahay isbari yeelo oo dhahdaan uu maan codin fikirkaadii ولكن فكرة سنة صعونة يصدق أنا ما بجوجي كرو وين بسعوتها حير بلا سعي أنا واحد مدن مركان ضد